waxaan ballan qaaday oo visionkeyga ama aragtideeda foga ummadda Soomaaliyeed inaan rajada ku soo celiyo rajada ummadda Soomaaliyeed ee doonayso waa nabad iyo nolol weeye nabad iyo nolol haddaysan jirin ummad ma jirayso ballantaas midii fuliye ballantaas waxaan ii sheegaynaa 6 bilood magaalada nabad inay noqonayso oo aad kulli nolol wada heshaan oo nimcada ilaahayna siiyay khayraadka dalkan leeyahay oo idin soo wada gaaro macquul ma aha mana aqbalayno waddankan barwaaqada ku jirta in wiil Soomaaliyeed iyo gabar Soomaaliyeed ee gaajo ku seexdaan mana doonayno waana ka dagaalaynaa dalkan waxa meesha istaajiyeen arkaysaan waa musuqmaasuq marka arkaysaan argagixiso ama xajir waxa naaxiyay waa musuqmaasuq markii loo diiday askarta forashii ku jirta oo kaneecada ku leeyahay mushaharkooda waa musuqmaasuq lacagtu way jirtaa qof jeebkiisa aad waana joojinaynaa waxa loogu soo xigta cadaaladda oo aan ballan idinkaga qaaday ammaano iyo amni waa hawl wata oo hadda aan wadno cadaaladda soo fiirsada soo ogaada 3 bilood soo socota waxaan ka qabanay cadaalad waa dhamaatay daba dhici mayso oo ana ballan qaaday oo dawladda ballan qaaday qof Soomaaliyeed intuu hortago maxkamad cadaalad darro lagu sameeyo arrinta horumarka dhaqaalaha oo ku xiran cadaaladda markii aan ammaanada idin ilaalino oo amni keenno oo cadaalad idin keenno dhaqaaluhu waa horumari ummadda Soomaaliyeed waxay u jihaysanaysaa barwaaqo iyo horumar iyo nolol waa igu ballan dhalinyarada Soomaaliyeed oo 70% ah oo shaqo la'aanta hayso 4 sano hadduu Ilaahay yiraahdo inaan ka shaqeeyo inay shaqo helaan maxaa yeelay waxaan ogahay qaacidada ama formula marka laga shaqeeyo amniga laga shaqeeyo amaanada cadaaladda laga shaqeeyo qof walba waa noolaanaya xitaa annaga bixinayna welfare wax la yiraahdo macaawin annaga bixinayna maxaa yeelay wixii jeeb shakhsi aadi jiray annaga u hayna qofka curyaanka qofka maskiinka gabadha agoonta haysata ilmaha agoonta kullu annaga dawlad waa ilaahina anagu nagu raxsatamaya waxaan idin sheegaynaa Soomaaliya muddo 4 sano inay ka horumarayso dawladda Afrika goolkeenu iyo visionkeenu waxa weeye 4 sano ka bacay inaan ka horumarno Afrika hadda yarsanna waa ka horumari karnaa waxay ku xiran tahay rabitaankeenna annagu ma rabnaa horta